ciidanka mareykanka waxa ay qarxiyeen laba diyaaradood oo mareykanka uu leeyahay kuwaas oo ku xadnibnaa halkii saaki laga fuliyay howlgalka lagu soo badbaadinayay duuliyaha mareykanka ee tan iyo jimcihii ku dhuumaalaysanayay gudaha Iraan markii ay dhacday diyaaradda F-15 uu la socday si looga fogaado diyaaradahan in ay gacanta u galaan Iraan sida uu baahiyay wargeyska New York Times. wakaalada wararka ee Iraan ee Tasnim News Agency ayaa ku warantay in Iraan fashilisay isku daygii mareykanka uu ku doonayay inuu ku badbaadiyo duuliyihii maqnaa isla markaana ay soo riday dhowr diyaaradood oo mareykanka uu leeyahay iyaga laga soo xiganayo afayeenka ciidanka Iraan xilli Trump uu ku dhawaaqay in duuliyaha la soo badbaadiyay isla markaana laga soo saaray dhulka Iraan. warbixin ay Al Jazeera baahisay ayaa sidoo kale lagu sheegay in Iraan isku dayayso inay sheegato burburinta laba diyaaradood oo Mareykan ah oo la sheegay in ciidanka Mareykanka howlgalka duuliyaha lagu soo badbaadinayay fulinayay kadib markii la sheegay in diyaaradahan ay ku xanibeen gudaha Iraan taana ay ka dhalatay in la qarxiyo si aysan gacanta u dhigin Iraan. waxay u muuqataa inay Iraan isku dayayso cadaadis hor leh oo ay saarayso Trump ilaa uu ka soo bandhigo duuliyaha halka Fox News oo ku dhow Trump ay hore u baahisay in uu xaalad khatar ah ku jiro duuliyaha oo lala tacaalayo sabab la xiriirto dhaawacyo ka soo gaaray markii uu ka booday diyaaradda ay Iraan soo riday.